toddobaadkii hore ayay ahayd markii maxkamadda sare ee Soomaaliland ay si rasmi ah u ansixisay natiijada doorashada golaha wakiilada iyadoo sida ku cad dastuurkan uu madaxweynaha Soomaaliland muddo 30 maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa 7 bishan July sanadka 2021 isugu yeeri doono golaha cusub waxaana halkaasi ay ku dooran doonaan saddexda xubnood ee shir gudoonka oo isugu jira gudoomiye iyo labada gudoomiye ku xigeen ilaa intii ka dambeysay markii guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqeen natiijadii hordhac ahayd ee doorashada waxa socday loolan iyo xudxudasho ay mucaaradka iyo maxaafadku ku kala jiidanayaan xubnaha 82 mudana ee iska dhex dooranaya shir gudoonka golaha wakiilada iyadoo isbahaysiga mucaaradka iyo xisbiga talada haya uu mid waliba u ordayo sidii uu hanti lahaa xubnaha shir gudoonka cusub isbahaysiga mucaaradka ee u cidiyo wadani oo haysta aqlabiyada golaha wakiilada oo ah 250 mudane ayaa iyagu horeba u soo qadimay saddexda xubnood ay u sharaxeen inay noqdaan shir gudoonka kuwaas oo kala Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo u taagan gudoomiyaha golaha wakiilada Cumar Jaamac Faarax oo isna u sharaxan jagada gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo Cali Xaamud Jibriil oo u taagan xilka gudoomiye ku xigeenka labaad ama isbahaysiga mucaaradku waxay u garteen inuu magacooda ku tartamo gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxaan ka dhignay first speaker ka deputy first deputy ga عمر أضب عمر جامع مركب إحنا دوننا إلى أنه كيل بعضنا أهله مرجعونه حوي حامد على حامد جبريل xisbiga talada haya kulmiye ayaa isna ilaa hadda cadeeyay xubinta ay u soo sharaxeen jagada gudoomiyaha oo ah Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon balse wali soo may bandhigin cidda u sharaxan labada gudoomiye ku xigeen waxaan dhisayaa Yaasiin professorka dad baa jiray ahal badar oo maalinta adkay dalka wax ka qabtay arintan waa arin aad iyo aad masiirka Soomaaliland uga dhab oo la doonayo waan message-ka inta ka dhiibay doorashada waynu galeynaa ay tartanka ololahan xoog waynu galeynaa hirdanka lagu raadinayo hogaaminta golaha wakiilada ayaa kor u sii kacay wixii ka dambeeyay intii maxkamadda sare ay ku dhawaaqday ansixinta natiijada doorashada golaha wakiilada iyadoo xukuumadda xisbiga kulmiye oo laga haystay aqlabiyada goluhu ay ku jirto weerar xoogan oo ay ku doonayso inay ku hantido mudanayaal ka soo jeeda xisbiyada mucaaradka oo u buuxiya tirada ay u baahan tahay si ay u hantido xubnaha shir gudoonka halka isbahaysiga mucaaradkuna ay ku jiraan difaac adag iyo weerar aan xooganayn oo ay ku ilaashanayaan aqlabiyadooda inta la gaarayo fadhiga ugu horeeya ee lagu kala calaf qaadi doono weerarka iyo galaangalka xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu ay ugu jiraan helitaanka aqlabiyad ku filan waxay u adeegsanayaan taba iyo xeelado kala duwan oo ka mid yihiin adeegsiga hanaan beeleed iyo ballanqaadyo muhiim ah maadaama aanay dani ugu jirin qaab xisbinimo inay wax ku raadiyaan una arkaan intaasi aanay guur ku gaadhaynin waxaana la sheegay in qaacidadaasi ay isticmaaleen ay ku heleen xildhibaano dhowra oo gacan haadis iyo dhaqdhaqaajin oday beeleedyo ay kaga soo jiiteen dhinaca isbahaysiga mucaaradka isbahaysiga mucaaradka ee wadani iyo ucid ayaa iyaguna difaaca dhufayskooda ku ilaashanaya qaab xisbinimo maadaama la sheegay inaanay u arkaynin in qaab beelnimo iyo ballanqaad ay sameeyaan aanay guul ku gaari karin hogaamiyaasha isbahaysiga mucaaradka ayaa iyaguna si adag uga qayliyay xeeladaha ka baxsan nidaamka xisbinimo ee madaxweyne Muuse Biixi iyo xisbigiisa kulmiye ay ku raadinayaan inay ku helaan xildhibaano ka soo jeeda mucaaradka waxa maalmahan dood ka socday magaalada ama Soomaaliland oo la yaabo oo xukuumadda Soomaaliland inay 250 mucaaradkana ka dhigto 30 keedina ka dhigto 250 waxay la taariikhda suurta gelaysa sinaba ma haynugu celinin madaxweynuhu sharci daradii ka dhacday dalka ee doorashadii 2005 ee wada kulmiye udub helay 3 ee u helay 22 ee kulmiye helay 7 sharci daradii keentay inuu kulmiyana 60 yeesho 60 iyo 2 xildhibaan wadani oon doorashada gelina oo yeesha 20
anigii ucidoo heshay 21 la yidhaha ma la xildhibaano waa sharci daradii adduunka ugu foosha xumeed ee dhacda weeye tii ay nagu celin 30 baad heshay labadii xusbe kala helay 250 iimaanso shirgudoonka waxa la isbahaysigaas ale xumaana maaha waa check and balance dalkii oo dhan gacanta ku haysta executive-kii hagaaji kana uu kula hagaajinaya awoodda gacanta absolute power dimuqraadiyaddu ma ogola waxaan ku leenahay kan noqo olobgaad ugu heshid iyo sharci daradan dad xusbi ka soo baxay adoonaysa inay kaaga u footeeyaan kan noqon ku leeyahay waxaan xasuusinayaa xildhibaanan soo baxay inuu sharciga dastuurkeenu sheegayo qodobka 51 uu sheegay farqadiisa koowaad xildhibaankii shuruudii lagu soo doortay ka mid ah mid jabiya inuu kursi waayo innaguna haddaan cudnahay lawyer baan u dhiibnay waa soo faahfaahiyey xildhibaan musharax kasta waanu ka seexnay noo tayo sharcigu way noo yaala ragga kulmiye isku horta taswiray ilaa waxaanu nahay musharax waxaan xasuusinaa inuu sharci jiro waxa kale oo madaxweyne xasuusinaya hase yeeshee madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa hore u sheegay in doorashada xubnaha shirgudoonka golaha wakiiladu ay noqon doonto mid xisbiyadu ay ka wada raali yihiin oo aanay yeelan doonin saameyn taban shacabka waxaan u bushaaranayaa sidaan ku talagalay haddii alla yidhaahdo doorashooyinka hadhay iyo xubnaha loo dooran doono chairmanka baarlamaanku ilaahay idankii inay ku dhammaan doonaan nabadeeda iyo sharafta iyo midnimada iyo walaal adigu qaado iyo walaal adigu qaado taasaan ku shaqeynayaa inaanu helo iyadana oo arrintaasi xisbiyadana taasaan soo jeedinayaa waanay u dhowdahay ilaa haddana wax khilaafaad oo xisbiya iska hor imanayaan ma aynaan arag iyadana waa laga heshiin doonaa si qabow oonay xisbiyadu u abuurin tartan cunf ka hor yimaada ayaanu u dhammayn doonaa oonay naga shaashoobin wanaaggii aanu doorashada kusoo galnay marka la eego doodaha siyaasiyiinta iyo haldoorka reer Somaliland ee la xidhiidha loolanka loogu jiro shirgudoonka golaha wakiilada waxay aaminsan yihiin si loo helo la xisaabtan iyo isku dheelitirka awoodaha golayaasha qaranka in muhiim ay tahay in shirgudoonka ay fadhiistaan xubno ka soo jeeda xisbiyada mucaaradku waxaan arkayaa culays badan oo hadda ka jira tartan aad u adag oo ka jira shirgudoonka golaha wakiilada inuu isbahaysigan mucaaradku helo iyo in xukuumaddu hesho xoog baa loo danaynayaa laakiin markaad eegto nidaamka check and balance-ka waddanka dee waxaa u fiican in mucaaradku qabsado maadaama aqlabiyadiiba yahay bay u fiican xukuumaddana waxay u tahay oo ansaxayaa qodobkaasi xukuumaddana waxay u tahay baraarujin ayay u tahay sida loo galo doorashadu maxay tahay very simple de waxa loo galaa doorashada ciddii codka badisa anu dee dhulkan ku noolahay adduunyadan aqaano ciddii codka ku badisa inay hayso jaa-isada ugu horeysa jaa-isadaas waxay tahay haddii kale dadkii ay soo doorteen dee hadday iyagu isbedelaan let us assume xisbigii wadani iyo ucud ayaa 250 kursi leh baarlimanka su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa haddii codkii laga dhabaynayo dadkan xisbiga labada xisbi ka soo baxay ma waxay uga soo baxeen temporarily meel ay ka soo baxaan oo deetana ha dhowto ay meel kala galaan Somali flea market by the way taariikhda Somaliland way ku jirtaa soo adamaad go back to 1960s xisbiyadii eeg halkan ilaa kuwii xamar lala tegay waa la gelayaa dhowr iyo 60 xisbi baa la galay waxa loo dhowr iyo 60 xisbi la sameeyay waxa xisbiga loo galayaa ma aha mabda waxa loo galayaa inaad horta geedka soo dhaafto markaad geedka soo dhaafto dee aad sarifato kurigii marka inaad kursigii sarifato marka hadday inaga dhabtahay dimuqraadinimadu opposition and maxaa ku dhahay government waxa weeye dadku codka ay bixiyeen dadkay soo doorteen please ha ixtiraamaan codkii la siiyay ha ixtiraamaan
loolanka loogu jiro shirgudoonka golaha wakiilada ayaa waxa doorkani inta loo og yahay aan loo adeegsan dhaqaale ay xukuumadda kulmiye ay ku soo jiidanayso xildhibaanada mucaaradka kadib markii culimadu ay ka digeen khataraha ka dhalan karaya qaadashada iyo bixinta lacagaha laaluushka sawirka hadda taagan ee la xidhiidha hirdanka shirgudoonka ee dhaqaaluhu uu shaqayn waayay ayaa u muuqda mid la mid ah sanadkii 2005 ay xukuumaddii udub dhaqaale ku loodin kari weyday xildhibaanadii isbahaysiga mucaaradka ahaa ee kulmiye iyo ucid ee xilligaasi iyadoo ugu dambaynna ay hantiyeen shirgudoonka golaha wakiilada bulshada Soomaaliland ayaa si weyn ugu dhagtaagaysa xilliga madaxweynuhu isugu yeedhi doono golaha wakiilada si ay u yeeshaan fadhigooda ugu horeeyo lagu dooran doono xubnaha shirgudoonka hase yeeshee isweydiinta taagani waxay tahay isugu yeedhista golaha ee madaxweynuhu ma waxay ku xidhnaan doontaa maalinta u horeysa ay cadaato in uu helay ama uu ka rajo beelay tiradii uga baahnaa isbahaysiga mucaaradka ee xisbigiisu ku fuulayay kuraasta xubnaha shirgudoonka golaha wakiilada